munaasabadan lagu weyneynayay dabaaldega sanad guurida 57 ee ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidanka ilaalada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo uu soo qaban qaabiyay taliska ciidanka badda ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, taliyaha ciidanka cirka, agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya, saraakiisha ciidanka ilaalada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Taliyaha ciidanka cirka Maxamuud Sheekh Ali Dabla Baylod oo ka soo qayb galay munaasabada ayaa hambalyo u diray ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya. waxaan u hambaleynayaa sanad guurada 57 ee ka soo wareegatay aasaaska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya. أساس إذا كفدة طاب إسكات إذا كحوق ذلك الصومالية مركز سيا الأساس إذا كان حولها إذا جاموري وإذا ماذا أفريقيا جيس أفريقيا ما وده ماذا أفريقيا اللي هنا قريبة أمور الكريم. agaasimaha guud wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Maxamed Saciid Samatar ayaa ku booriyay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya horumarada ay ku tilaabsanayaan. waa idin hambalyeynaya sanad guurada 57 taasoo u dhigata in ciidanka badda Soomaaliya la aasaasay 1965 waa muddo dheer hase yeeshee dalkeennii masiiba ku dhacday ayadii dowladda way burbureen marka dowladnimada Soomaaliya la raadinayana dib loo hagaajiyo waxyaabaha jira oo ahmiyad badan la siinin waxaa kamid ah ciidanka badda. taliyaha ciidanka ilaalada badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya Admiral Cabdi Xamiid Maxamuud Dirir ayaa hambalyo u diray ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya wuxuuna sheegay in ciidanka baddu ay difaacayaan xeebaha Soomaaliya isla markaana la xoojin doono tayada ciidanka ilaalada difaaca xeebaha Soomaaliya. aad u ballaaran oo lagu tayeeyo ciidanka badda iyo difaaca xeebaha ee Soomaaliya isagoo aad iyo aad loo tayeeyo si uu u guto waajibaadkiisa dastuuriga ah ee shaqo waa la socotaan muddooyinkan dambe in badaheennii ay hadda ay awal hadday gorgorta ku jirtay ee Mareykan aysan wax gorgorta aysan ku jirin oo ay leedahay dowladda Soomaaliya wixii ay xuduud ay lahaayna ay diyaar yihiin inay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ka howlgalaan. waxaan rajaynaynaa ama aan ugu hambalyeeynaa ummadda Soomaaliyeed in dib loo yagleelay burburkii kadib ciidankii badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya. Muuse Ismaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.